dhowr qof markaan weydiiyey aan ku yidhi saasaan dareemaa asxaabteydii ka mid ahaa waxaa laygu yidhi way dhacdaa jirkaagaa daalan hurdo badan markaa jirku cabsi buu dareemayaa seexo waan seexdaa habeenkii markaan seexanayo markaa aad kursidaas kasii dhegaystaa albaqdaas ka dhigtaa waan seexdaa cid kale lamaa sheergaray markaa wadaadii xubtoona maa sheegin maalin maalmaa ka mida waxaa dhacday inan aan saaxiib nahay oo joogta maxaa la yidhaahdaa jarmalka joogtaan u sheegay aan kuhi nimco saasaa igu dhacdaa waana igu soo badanaysaa baan ku yidhi dadna waxay igu tiri hadhayalsan saaxiib shiikh u sheeg waa inaad shiikh u sheegto way ka soo waaday haddana inan aad iyo aad iyaduna maasha allah diinta ku xeel dheer oo wadaada oo joogta Canada ayaan u sheegay iyadana warsan la yidhaahdo khayr allaha siiyo waan u sheegay xigta waa shiikh halkan la joogana waan u sheegayaa wax kalena ma tufaaxay ilaah baa ku jecel toobadna keen waxaana ku jirtana iska daa wadaadana kaasho way tiri ilaahay ma taqaanaa u soo noqo wax kale awalba ma sameynayno xunde waa sameynaysaa malay salaadeedana waan tukanay laakiin kulli heesuu ma dambi yara waana macsi hadalka yanaan ku badinin waxa dhacday haddana asxaabta badana guriga saaxiibada baan joogaa markay inantu ii soo gasho waan ka baqaa waan sasaa sidii qof guriga cidlo oo kale jooga baan qaylinaya samadan ka qaylinaya isagu tir nashadaaka iska naar maxaad la sasaysaa habeen badhna ma waa xilli caadi ah fiid kadib waxa dhacday waan soo tagay gurigaygaan imi qaybisada dabka maxaa la yiraahdaa aan gashado habeenkii marka seexdo mas bay noqotaa qaybisadii mas bay igu noqotay jaajarka anigu aan jaajarkan isticmaalayana sidoo kale mas buu igu noqday dadna waa dad sida dadka ila hadlayaan way idilayaan inay idilaan bay isku dayaan sida dadka ila hadlayaan waan ka caawin cudbilaysi guriga dhan waa cidla ma hadli karayo marmarna inta la qabto cunaha la igu dhagaa meel madow la geliyaa saanka la qabtaa la ciijiyaa kadib waxaa dhacday sidii baan hablii haddana ugu sheegay sidii bay igu yidhaahdeen waa inaad shiikh u sheegtaa warkayaan ku badnay shiikh baan u sheegay waxaan ku jimcihii baan shiikh la xidhay waxaan ku saasaa igu dhacda dhibaatadaasaan dareemayaa mana garanayo dee wax maxaad samaysaa maxaad dhibaataa maacidbaka cidna kama xanaajiya waan ku yidhi waalidkayna raalligu iga yahay ummadda ilaahayna way iga amaan heshaa oo inta ugu badan waxaan siraa ummadda saaxiib baabad la tahay oo cidna dhibaato uma geysto cidna saacaddan isma hayno marka muxuu camalkaagu yahay buu igu yidhi waxaan qabtay shaqadeeda iyo camalkaygaan u sheegay kadibna waxaan ku yidhi fanaanad baanay hadalkii kooban sheeg buu igu yidhi raadi wixaad yacni khaladaad samayso fanaan baanay wuxuu igu yidhi ilaah baa ifka kugu ciqaabayay waxbaana lagu tusayey wax aad wax ku wada qaadata ayaa lagu tusayey qofka ilaahay jecel baan xumaanta ka soo qabtaa inta ka badanna waad arkaysaa haddaad ku sii jirto wax badan oo kale aad arkaysaa laana waa runtiisa jirku way gariiraa dhakhtar kasta wiiga waa marba xawadnay xanuunaa jirku intuu gariiro wadnuu dhacaya marsan gariiraya markaasaan odhanaya dhiig bay ugu kacsan dhiig ma ahan waxba waa layga waayaa haddii dan wuxuu igu yidhi halka aad taagan tahay waa inaad kaga dhaqaaqdaa waxaanaad hayso qur-aanka ayaa ku ah dawo qur-aanka ilaahay iyo jidka ilaahay ku toos maxaa la yidhaahdaa ilaahay u toobadkeen halkaana ku jooji waxa aad gacanta ku haysa halkaa ku jooji marka runtii waxaan door biday maadaama ilaahay jecel yahay oo ku faraxsanay alxamdulilah rabbil caalamiin xumaanta laga qabanayo waxa la tusayna aan ahayn wax yar oo dee aanan gama waliba markaan keligay hay ugu badan tahay asxaabteeda markaan la joogo saaxiibada gurigeeda joogo inta badan waan sasaa markay waan naxaa waan qayliyaa sasku igu badan yahay runtii laakiin ma arko waxay igu darantay markaan keligay noqdo ayaa waxaan ii imanayaan dadkani ila hadlayana ma arko badanaa ma arkayo bishana way igu soo badatay imika bishan lagu jiro oo dhan way haysatay dhibaatadaasi marka alxamdulilah rabbil caalamiin dee nafta meesha jirta ilaah baa garanaya oo dee haddii inta la ii sheego lagu yidhi haddaad dhimanaysa aan hadda dhinto oonan toobad keenin waa dhibaato marka waxaan rabay inaan idinla sheergareeyo in ilaahay toobadiisu way bannaan tahay aan sidaa ku toobad keeno maxaa la yidhaahdaa farahana aan ka qaado shaqada aan haye runtii kuma dhex jirin yaasiin guurso walaalo waa lay qabaa soo dhawow marka maxaa la yidhaahdaa waxaan doonayay halkaa inaan ku joojiyo runtii marka horena kumaan dhex jirin oo waxaan ahaa dadka ka aan saa ugu sii dhex jirin fanka inta wanaagsanna waan ka raaci jiray dadka wanaagsanna waan ku xidhnaa oo dee fanku hadba waa sidaada u dhaqanto marka waxaan doonaya inaan u mahad celiyo intii ila soo shaqayn jirtay ila soo shaqaysay intii aan ku jiray abwaaniintii garab qabatay fanaaniintii garab qabatay dadkii oo dhan inaan u mahad celiyo aniguna toobad ilaahay way bannaan tahay maanta oo maalintu tahay maantanan aan idinla hadlayo inaan gebi ahaanba iska joojiyey kana codsanayo walaalaha inaanay i dhegaysanin oo dhibaatadan ay igu sii badanin halkaa ay igu daayaan ilaahay ha u dambi dhaafo iyagana inuu ilaahayna ii dambi dhaafo oon saa ku daayo aanan layguna soo taagarayn layna dhegaysanin hadday awoodaan anigana
iisoo ducaysaan inuu ilaahay saa igaga masaxo cabsi oo ilaahay uu khayr ka dhigo soo telefoon baa soo galay marka insha Allah biidmillah abwaanintaydiina waan u mahadnaqayaa intii awoodaysan inay heesahayga YouTube ka saaraan ee aan garanayo gelisay waan ka dalban doonaa insha Allah waan la hadli doonaa intaan garanayo intii kale aan garanayna haday videogaygan arkaan ay ka saaraan idinkuna aad igu duceysaan toobada inuu ilaahay maanta uu waafajiyay lay tusay ifka wax laygu tusay inuu ilaahay ila garab galo sidaan hadaayadiisa uu igu wado insha Allah biidmillah dhowr jeer waan isku day waanan iri waan ka baxay laakiin waxna maan dareemin waxna maan arkay hubbigiisa ka yahay waan iska qaadi jiray heesaa waan iskaga dhex jiray laakiin maanta waxaan wax ku qaata baan arkay oo lay tusay insha Allah inaguna maanta waxaynu maraynaa in lagu xaragoodo oo macrad dhan loo dhigo oo loo soo shaqo tago oo wax nasiib darro ah way aad iyo aad u cajiib Soomaalidaan arkaynin inamadii yaryaraad oo muruqyo kuusan oo dhar isku soo gijiyo xubinkoodii taranka halka ka muujinaya sida sawirada ka muuqanaysa ayaa habla aad u badan oo hablaheennii loo soo fariisiyay madaxda wadanka dumarkooda qaad kamidaba mashruuc lagu siiyo abaabulayaba daayartii aqoonyahanka ahayd weeye ee dadka sixil ahayd marka habluhuna laba layno aad u dhaadheer bay u fadhiyaan kabaradana way wada haystaan iyo moobaylo ay ku sawirayaan kolba inan baa dabada dhaqaajinaya iyo bowdada iyo inan baa barigi hore dhaqaajin jirtay laakiin inankiina waa lagu soo daray mataqaanaa sheekada inanku halka ka timi waa qowmuluudka ka timi barigi hore gaaladu waxay sameyn jireen tartankan quruxda iyo ahalahan dharka lagu xayay dumarka lagu xayaysiiyo dumarka sameyn jiray marka waxa xanaaqay Faransiiska ka bilaabeen kuwii qowmuluudka ahaa ayaa xanaaqay oo yiri anaga laftigeyga deer waana la waxeeyay maanu isbandhigna anaguna markaas ragii qowmuluudka ahaana intay dhar soo qaateen iyaguna ismarmarooriyeen oo is soo bandhigeen sheekada halka ka timid Hargeysa ka socota halka sheekee oo inamadii la daawadsiinay hablihiyo halka laga basbaasaynaayo deena ka yara murqiyada kusanaysa isu maroojinaya markay inantii aragto goordho xaga shay ka bidhaansanaysa see kooranaya reer hebelin bay naga garciyeen gaalna xagga dambe u fadhiya sida ka arkaysa sawirka mid gaalo timacad xagga dambe fadhiya waa riyaab leh waqtiga soo socdana waxa la sameeynaya tii hablaha marka kolka wax ka hadla la waayo wax diida deewa lagu wadayaa in aad waalanayso baasha isha la yiraadana iyo waxaad arkaysaa iyo xubinka taranka ilaahay uu isku xidhay halo fiirsa aayad ragga markuu ka warramayo dumarka markuu ka warramayba qul lil mu'minina yaquddu min absarihim wa yahfazu furujahum labada jeerba ishana ha ilaaliyeen farjigana ha ilaaliyeen macnaha waxa macruuf oo la og yahay sharcigu saaw inoo sheegay aqliguna sheegaya sidoo kale daraasadaha laga sameeyay caafimaadkuna sheegayaan